بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay bisha Febraayo ay tahay 11 maalin Khamiis ah 2021 waxaan halkan isugu yeedhay arrin inoo muhiim ah dal ahaan iyo dad ahaan iyo qaran ahaanba. Arrintaasi waa arrin ku saabsan inaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelino dacwadii badda ee laynagu haystay baddeena ee soo bilaabatay 2014 aynu xaraynay dacwadeeda ee maxkamadda cadaaladda dunida ICJ aynu keenay. arrintaasaan maanta isugu yeedhay saxaafadda inaanu dadweynaha la socodsiino arrimo ka soo cusboonaaday dacwadii badda iyo halka ay marayso. sidaa ogtihiin baddeena oo ka mid ah xuduudaha dastuuriga ah ee dalka sida cirka, dhulka iyo badda waxaa dacwaday aynu maxkamadda dunida geysanay kadib markii dowladda dariska ah Kenya ay sheegatay inay badda qayb leedahay. dacwaddii aynu geysanay August 2014 ee laynaga aqbalay ilaa maanta 2021 taagan maalin walbana sidaan shoogi doona ay dib u dhigaysay dowladda Kenya ayaa markii afraad waxa ay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwadda mar afraad oo noqonaysa xilligoodii shanaad in la mudeeyo. dowladda federaalka Soomaaliya saako Khamiisa 11 February 2021 waxa ay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ xarunteedu tahay Hague dalka Netherland ay u qortay warqad ay ku sheegayso Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwadda oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15 Maarso 2021 isla markaana aynay dowladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad. sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice denied. haddaad dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay inaanad maxkamadda aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaaladda hor tagto ayay ka dhigan tahay. ma markii koowaad ba maya sidaan idiin sheegay hadda waxay noqonaysaa 15 March in la idhaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal la mudeeyo dhageysiga dacwadda. August 2014 ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furannay. July 2015 qoraalkii dacwadda ee dhinaceena inaynu badda leenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen inuu baddani tahay baddeenii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015. waxa la mudeeyay December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo dib ay u dhacday Kenya codsatay. markii hore waaba ka warwareegeen laakiin markii dambe ay geysteen markii dambena dib ay u dhigeen. sidoo kale 25 June ayaa la mudeeyay 2019 sida la wada socoteen wafdi uu horkacayo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed oo ku jiro xeeraalihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwadda geeyay Hague 25 June 2019. si Kenya ay dib ugu dhigto dacwadda dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u doodaan haysan. waa nasiib darro dal dhan oo la sugayay oo yidhi dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka eriyey. sabab markii la weydiiyena waxay yidhaahdeen waana khiyaamayeenoo waxay u shaqaynayeen meelo kale. waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo. maxkamaddu waa ka diiday. gudoomiye ku-xigeenkii maxkamadda gabadhu waxay tidhi 2 bilood baan idin siiyey. November 4 ilaa 8 ayaa la mudeeyey. mar labaad ayay soo codsadeen oo yidhaahdeen ilaa hadda loo yarama aanaan qoranin maanaan shaqo gelin kontraadyo cusub lamaanaan gelin dacwaddiina may daraas karayne dib noogu dhiga ilaa June 2020. mar saddexaad ayaa June
haddana laysla gaaray iyadoo la diyaar yahay dib baa loo dhigay haddana codsi dambey geysteen tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin ee 15 March 2021 kiina shalay way soo saareen warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray uu leeyahay ma iman karo sababtoo ah waxaan laga xaday maab noo muhiim ah oo aanu malaynayno inay dadkaanu ishayna gacantooda yani wax iska khuraafa waxaan kaloo ku doodeenoo cajiiba oo la yaab leh sheegashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiyiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dawlad sharciga ka jirin dalka Soomaaliya nasiib darro runtii ah oo ay doonayaan inay leeyihiin qaynuunada caalamiga ah waxay ku salaysan yihiin dawlado marka dawladdii kula doodaysay ee ay hayseen haddaad dhisku wala fadhigarayso tirado dalkaasi dawlad male macnaheedu waxa weeye waa ciyaar laba kooxood u dhaxaysa oo ay rabaan in la yiraahdaan kooxdan kale xaq uma leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya yaanu imanaynaa ciyaaraynaa ama imanba mayno oo waxay doonayaan inay ku disqualified gareeyaan keyskeena Soomaaliya dawlad kama jirto horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcad badeed maantana waxay rabaan inay yiraahdaan dalka inta leeg ee dawladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh ee garsoorka leh inay yiraahdaan dawladda kama jirto iyagoo ka faa'iideysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiyiinta qaar ay ugu loogayaan ama ugu gowracayaan qarannimada Soomaaliyeed cadowga hadda sheekadii marka intii hore ee aynu isla ogeyn way soo dhaaftay waxayna u eg tahay markay yidhaahdaan dalkaba dawlad kama jirto nin baa wuxuu yidhi islaantii dariskeenna hee indhalaan ma ku ogeyd haa haddana dad cunow bay ku darsatay inay dadka cunto Soomaaliya dawlad kama jirto macnaheedu markay leedahay Kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan duulaankeedii qaban waxay kaloo muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ahayd ay shacabka Soomaaliyeed sheegaysaa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti sax ah oo ka timi hoggaan sax ah oo aragti leh arrinta dib u dhigista dacwadaha oo markii la rafraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda the credibility of international justice system waa araxjab waa dhabar jab waa runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee iyada lagu eeranayay in maalin walba inta warqad la soo qoro la yiraahdo ma geli karo dib noogu dhiga looyradii baan erinay hadda waxaan arkaya ka xeerlaaliyo oo la qaar baa naga dhintay looyradii every day waa marmarsiin waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin inaanay badal lahayn waxay og yihiin inaynu helayno they never thought may filahaynin inay Soomaaliya awoodda leedahay qareenadeeda iyo xukuumadeeda iyo dawladdeedu ay ku difaacan karaan cirkooda dhulkooda iyo badooda dawladdeenu waa beentood dalka dawladda ka jirta iyagu waxay leeyihiin dawlad ma tiidin dawlad ma jirto waxaad tihiin dal anarkii oo fawda ah waa beentood sharciyad baynu haysanaa sharciyaddii baarlamaanku ansixiyey baynu haysanaa kursi bannaanaadoo xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkiisii yimaado oo la soo doorto kursi ra'iisul wasaare oo bannaanaadana ma jiro ilaa la soo magacaabo kursi madaxweyne oo bannaanaadana ma jiraan ilaa inta teendho la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeedooyin gaara leh ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan baddeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalku dawlad ma laha waxaan rabnaa in shacabka Soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta Soomaaliya dawladi kama jirto oo way dhacday iyo maxkamaddii adduunka ay annaga noo xukun ama dib noogu dhig sida qoladii jaadka ee Mirogo ay lahaayeen 100,000 oo qof baa naga shaqaale waxaanu sugaynaa dawladda cusub ay iman doontaa madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo jaadkii waxa soo dhamay waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay waxaan rabnaa siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed
markay noqoto difaaca dalka in meel looga soo wada jeesto waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basiga dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu oo aanay aamusin maxay u aamusan yihiin siyaasiyiintu marka Kenya la soo qaado maxay u aamusaya marka badda la dhacayo la soo qaado maxay u aamusaya marka dalka lagu soo duulo maxay u aamusaya waxaan doonaynaa shacab siyaasiyiin xukuumad baarlamaan dowlad goboleedyo inaynu iskaashano oo difaaca dalka uga soo wada jeesano waxaan ku soo gabagabeynayaa annagu waa wadaynaa dacwadda badda warqadda aan saaka qornayna waxay muujinaysaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxdeeda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inta kaleba ay ka go'an tahay inaan go'aaga haddii lagu qabsado ama shaatigaaga waa inaad ka garbaxdo aad cadaalad doonto aniga ale aad cadaysato procedure-kii baynu marnay waynu cadaysanay inaynu inagu leenahay iyaguna waa ka warwareegayaan ma aqaan waxay sugayaan ay maalin walba dib ugu dhigayaan shacabka Soomaaliyeed ayaan u deyn doonaa su'aasha aad iyo aad baa u mahadsantihiin su'aaluhuna waa inoo furan yihiin ilaa inta ka daalaysaan su'aaluhu inoo furan way sax haddii Kenya marka maxkamaddu ay u darayso dhinaceeda oo ay go'aan ka qaadato idinka maxaa talaabo qaadaysaa waxtaan saaka qornay inaanaan qaadaynin waxa kale oo kugu yiri delay justice is deny justice waa cadaalad oo dib loo dhigaa waxay ka macno tahay in aan cadaaladii oo la